ilaa hadda inta la og yahay 3 qof ayaa ku dhaawacmay tiro ka badan 60 guri oo ay ku jiraan goobo ganacsina way ku shufbeeleen dab ka kacay bartamaha magaalada Garissa isla markaana khasaare gaarsiiyay qaybo badan oo kamid ah magaaladaasi saraakiil ka tirsan hay'adda World Vision oo deegaankaasi ka hawlgasha isla markaana sawiradan muuqaalada ah ka soo qaaday deegaankaasi ayaa waxa ay xaaladda ku tilmaameen mid aad u daran waxana ay sheegeen in qaraxyada rasaas iyo gumacyada kale ee walxaha qarxa oo ku hoos jiray guryaha dabku qabsaday ay xaalad meelo tiro badan laga maqlayay isla markaana ay xaaladda sii murginayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay oo darasiyana sababta dabkani kicisay ayaa waxa ay yidhaaheen dabku wuxuu ku bilaabmay waxa ka soo bilaabmay halka u hooseysa dabiil iyo aasuba ka dhacay magaalada markii hore dabiishii ilaa daantaas maray gubasay guryaha qaar waxa ku jira dukaanada qoryo dad leeyahay oo gabadh masaakiin lahayd oo maqatan ku fahmin ayuu dab ka bilaabmay dhamaan waxaan harsanaa waa maro guryaha dhagaxeeda kaysid guri kasta maro ba ku hortaalay تيبنا تبقى جالس. الضبع عيالا قودنا يور سكوت كجساري إما كان سديد باكو قوديا مصيرنا الدساسة يسوع جادي ما شيء روا تاسوي بابادي وكما هيانو مدوبا كبحي magaalada Garissa ayaa waxa ku taala xarunta ugu ballaaran ee ciidamada qaranka ee gobolada Awdal iyo Salal waxaana ay sheegeen saraakiisha ciidanku in dabkaasi aanu gaadhin xarunta ciidanka iyadoo laga duulayo masiibada dabkaasi geystay ayaa maanta gudida qaadan ururinta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal waxa ay gurmad loogu talagalay inuu wax u taro 60 qoys u direen deegaanadaasi sidaana waxa sheegay madaxa gudida abaaraha gobolada Awdal iyo Salal Sheekh Maxamed Daahir Dawalla Abdul Ali Yusuf Borama